بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Today is Friday 29 August 2025. maanta maalinimo Jimcaha taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha 8aad 2025. ما شاء الله waxaa kitaaba noo qeybiyeen groupka Sadaqa Jaariya Group. Sadaqa Jaariya Group qeer Ilaahay hasiyo muraadkooda Ilaahay ha u saqiro dembigooda iyo dembi waalidkooda Ilaahay ha dhaafo Sadaqa Jaariya Group oo mar walba garabkeena taagan Ilaahay muraadkooda ha u saqiro Sadaqa Jaariya Group oo mahaajir madax ay u tahay qeer Ilaahay hasiyo muraadkooda Ilaahay ha u saqiro Sadaqa Jaariya Group dembigooda iyo dembi waalidkooda Ilaahay ha dhaafo mar walba qeer ay nala daba taagan yihiin Ilaahay maalkooda iyo hantidooda ay noo soo sadaqeeyaan mar walba Ilaahay u barakeeyo hantidooda iyo maalkooda Ilaahay ha u barakeeyo awlaadooda baari Ilaahay ugu dhigo intaan awlaad haysanin awlaad baari oo saalix Ilaahay ha siiyo intaan awlaad haysanin awlaad baari oo saalix Ilaahay ha siiyo Sadaqa Jaariya Group muraadkooda Ilaahay ha u saqiro meeshay kasoo bixiyeen bedel qeer qab Ilaahay ugu bedelo siday noogu warhaayaan oo mar walba haday naqan lahayd kitaabo quraan haday naqan lahayd qadasiin haday naqan lahayd afurin haday naqan lahayd ciidsiin haday naqan lahayd waxay masaajid in la dhiso haday naqan lahayd dugsi in la dhiso ceelal la qodo dadka masaakiinta ay caawiyaan mar walba barnaamij qeer ay ka shaqeeyaan Sadaqa Jaariya Group qeer Ilaahay ha siiyo muraadkoodana Ilaahay ha u saqiro اللهم سهل مرادهم اللهم سهل مرادهم اللهم سهل ما في قلبهم اللهم اجعل أولادهم بارين اللهم اجعل أولادهم بارين اللهم تقبل صدقاتهم اللهم تقبل صدقاتهم اللهم تقبل صدقاتهم اللهم اغفر لوالداهم اللهم اغفر لوالداهم Sadaqa Jaariya Group oo mahaajir madax ay u tahay qeer Ilaahay ha siiyo muraadkooda Ilaahay ha u saqiro Sadaqa Jaariya Group oo mahaajir madax ay u tahay inta awlaad laan awlaad baariya oo saalix Ilaahay ha siiyo inta awlaad haysataan awlaadooda Ilaahay ha u barakeeyo siday mar walba ay noogu farxiyaan Ilaahay ugu farxiyo siday mar walba garabkeena ay u taagan yihiin Ilaahay garabkooda ha u istaago ehelkooda iyo qaraabadooda inta ka dhimantay Ilaahay ha u naxariisto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.